السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جانال كمر كلا سو دوادا أدي هذا وما هتسنتهين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago arrin la xiriirta koobka adduunka iyo siyaasadii oo isi soo galay madaxweyne Trump oo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA intuu la hadlay ciyaaryahan ka tirsan xulka qaranka ee Mareykanka oo roose la siiyay arbacadii la soo dhaafay in roosadaasi dib looga laabto ciyaaryahankaasina uu ciyaaro kulanka caawa Mareykanku uu la ciyaarayo xulka qaranka ee Belgium haddaba Trump oo saaka shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad arrintaasi muxuu ka yiri maxayse dadka ciyaaraha falanqeeya ay u leeyihiin arrintan waa fadeexad weyn oo sumcad darro ku ah xiriirka kubadda cagta ee adduunka ee FIFA Trump muxuu ka yiri sidee wax u dhaceen arrimahaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay koobka adduunka in uu ka socdo Mareykanka Mexico iyo waliba Canada walow labadii wadan ee la martigelinaysay Mareykanka ee Mexico iyo Canada ay ciyaaraha ka hareen oo Mexico xalay oo ugu dambeysay ka hartay oo xulka qaranka Ingiriiska uu ka reebay 3-2 uu uga badiyay isla markaana sidoo kalena Canada ay Morocco ka reebtay oo 3-0 ay Morocco ku badisay waana ilaa ay hadda xulka kaliya ee Afrikaanka ee Morocco ee 8-dhamaadka u soo gudbay isla markaana sidoo kalena wadamada kale ee soo gudbay waxa kamid ah maalnimadii shalay ahayd Brazil oo laga adkaaday isla markaana Norway ay soo gudubtay iyo sidoo kale Ingiriiska Mareykanka ayaa ka soo haray wadamadii martigeliyaasha Mareykankana Belgium ayaa magaalada Seattle ee gobolka Washington caawa 2 saac uu kula ciyaari doona marka haddii la reebana waan arki doonaa haddii 8-dhamaadka uu soo gudbana sidoo kale waynu arki doonaa laakiin waxa la yaab leh in siyaasadii iyo ciyaarihii ay soo dhaxgaleen koobkan adduunka ka hor inta uusan bilaaban waan ogeyn fadeexooyinka kala duwan oo wajahayay iyadoo garsooraheennii Soomaaliga ahaa ee Cabdiqaadir Cumar Cartan loo diiday inuu Mareykanka soo galo isla markaana la celiyay ciyaaryahan Thomas Partey oo Ghana u ciyaaray in viisihii ay Canada u diiday isla markaana sidoo kalena taageerayaal fara badan loo diiday viisayaal arrintaasi waan ogeyn laakiin hadda arrintan soo baxday ayaa waxay tahay arrin kale oo la yaab leh xulka Mareykanka ayaa kulankii wareega 32 uu la ciyaaray Bosnia arbacadii la soo dhaafay oo 1 bisha ahayd waxa jirtay in weeraryahankooda Florian Balogun roose la siiyay qaybtii dambe ee ciyaarta waana ciyaaryahanka goolasha ugu badan Mareykanka u dhaliyay koobkan adduunka oo 3 gool ayuu u dhaliyay waliba kulankaasi oo Mareykanku 2-0 uu ku badiyayna goolka koobaad isaga ayaa u dhaliyay laakiin qaybtii dambe ayaa markii ciyaaryahan ay isla boodeen oo lugta uu uga istaagay ayaa waxa loo arkay inuu yahay faawal qatara ama qalad qatara oo ciyaaryahankaasi dhaawici karay lugtiisana jabin karay sidaas darteed garsoorihii ciyaartaasi oo Brazilian ah isla markaana Rafael Claus la yiraahdo ayaa markii uu dib loo eegay faawalkaasi ama qaladkaasi dib loo eegay oo video assistant referee-ga VAR-ka dib loo fiiriyay waxaa loo arkay inay tahay faawal qatara ama qalad qatara oo ciyaaryahanka kale ee reer Bosnia qatar gelin karay lugtiisana jabin karay sidaas darteed roose ayaa la siiyay ama kaarka casaanka ah taasi oo sharciyan sida ay tahay ciyaaryahankaasi kulanka xiga uusan ciyaari karin oo hal kulan in uu xulkiisa ka maqnaado ay tahay marka arrintaasi Trump ayaa soo farageliyay Trump waxa uu wacay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino waxana uu ku yiri arrintaasi qalad ma ahan waa inaad dib u eegtaan ciyaaryahankaasina kulanka caawa 2 saac habeenimo Seattle ka dhacaya oo Mareykanka iyo Belgium ay wada ciyaarayaan waa inuu ciyaaraa xiriirka kubadda cagta marka FIFA gudigooda ayaa arrintaasi dib u fiiriyay markii Trump uu wacay madaxweynaha FIFA waxayna yiraahdeen qodobka 27aad ee anshaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA markaan fiirinay kadib waxaan garanay in hal sano suspension lagu sameeyo roosadaas marka waxay tahay ciyaaraha isla reebka ee soo socda ee koobka adduunka kulan kamid ah ayaa ciyaaryahankan uu seegi doonaa laakiin kulanka caawa Belgium iyo Mareykanka ay Seattle ku wada ciyaarayaan macnaheedu waa uu ciyaaraya arrintaasina waxay noqotay arrin fadeexa in siyaasadii iyo ciyaarihii ay soo dhaxgalaan Trumpna uu waco madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA uu ka codsado in dib eegis lagu sameeyo qaladkaasi roosaha lagu siiyay ciyaaryahankaasi Trump marka saaka shir jaraa'id ayuu ku qabtay markii FIFA ay tiri ciyaaryahankaasi kulanka caawa waa uu ciyaari doonaa shalay go'aankaasi uu soo baxay madaxweyne Trump marka shirkiisa jaraa'id si cad ayuu ugu sheegay in wuxuu yiri arrintaasi qalad ay ahayd anigu maba aan garanayn red card waxa uu yahay laakiin markii la igu yiri ciyaaryahanka kulanka soo socda marka uu ciyaarayo madaxweynaha FIFA ayaan wacay waxaan ka codsaday in dib loo eego
qaladkaasi ayuu yiri maxaa yeelay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan haddii refereegu uu roose iska siinayo arrintaasi arrin saxa ma ahan waxaana uu sheegay labada ciyaaryahan waa isla boodeen kadibna lugahooda ayaa isgalay sidaas darteedna arrintaasi ma ahayn arrin qalad ah waxaana uu sheegay mid cadaalada ma aysan ahayn sidaas darteedna waxaan ka codsaday in dib u eegis lagu sameeyo bal madaxweyne Trump oo aqalka cad ka hadlayay arrintaasina aan ku dhawaaqayay waxa uu yiri sidoo kale madaxweyne Trump arrintan waa uu ku sii socday xitaa waxa uu eedeeyay garsoorihii reer Brazil ee rawsada siiyay ciyaaryahanka reer Mareykan ee Florian Balogun waxaana uu sheegay in garsoorahaasi marka dib loo eego ayuu yiri taariikhdiisa in qaladaad fara badan uu leeyahay laakiin ma doonayo hadda inaan sheego ayuu yiri laakiin in uu awooddaasi leeyahay garsooruhu ma baanan ogeyn oo ciyaaryahankii uu rabo oo roose iska siin karo marka sidaas darteed waxa uu yiri arrintan FIFA wasaq ayay ku ahaan lahayd laakiin hadda ayaaba arrintan FIFA ay wasaq weyn ku tahay maxaa yeelay in madaxweyne wadankii martigelinayay koobka adduunka uu yiraahdo ciyaaryahankaasi ka tirsan wadankayga waa in roosadaasi laga laabtaa isla markaana kulanka caawa uu ciyaara arrintaasi waa fadeexad weyn oo weli horay aan u dhicin maxaa yeelay FIFA waa hay'ad madax bannaan isla markaana go'aamadeeda iska leh madaxweyne Trump marka waxa uu yiri waa jirtaa inaan la xiriiray FIFA sidaas darteedna madaxweynaha FIFA isagu go'aanka ma uusan gaarin oo guddi ayaa gaaray wuxuu yiri maxaad u malayn lahayd haddii ciyaarta laga saaro oo uusan ciyaarayn Messi ama Ronaldo ama Harry Kane xogaa Trump waxaad u malaysaa in ciyaartooyda walow Messi iyo hore uu ula kulmay saddexda ciyaaryahan isla markaana Harry Kane xitaa xalay markii ciyaarta Mexico ay ka badiyeen oo bartiisa True Socialka ku soo qoray waa ciyaaryahan weyn golf ayay wada ciyaareen hadda kor sida Trump uu sheegay marka waxa uu yiri arrintaasi waxa uu yiri qalad ayay ahayd go'aankaasi go'aan sax ma aysan ahayn sidaas darteedna waxa uu yiri go'aan sax ayay hadda FIFA gaareen maadaama ay dib uga laabteen roosadaasi maxaa yeelay waxa uu yiri ciyaaryahankan waxa uu kamid yahay ciyaartooyda ugu wanaagsan Belgium waxa uu yiri ciyaartooy fiican ayay haystaan marka annaguna ciyaartooydeena ayaan haysanaa haddii laga adkaado xulka wuxuu yiri Mareykanka iyo haddii Belgiumba ay laga adkaado waxa uu yiri arrintaasi waa mid loo qaateena haddii labada kooxoodba ciyaartooydooda ay haystaan sidaas darteed garsoorihii ciyaartaasi oo roosada siiyay Florian Balogun oo waryahanada ka mid ah xulka qaranka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uusan ahayn referee aad u wanaagsan isla markaana taariikhdiisii hore haddii dib loo eego aysan ahayn mid aad u fiican marka I don't know waxa uu yiri ma doonayo hadda inaan idin sheego laakiin markaan dib u eegay garsoorahaasi taariikhdiisii hore mid wanaagsan ma aysan ahayn bal Trump oo mar kale arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri marka sharciyan marka ciyaaryahan roose la siiyo marka hadda horyaalada aan eegayn iyo koobka adduunkaba kooxdu racfaan ayay ka qaadan kartaa laakiin koobka adduunka kale hadda racfaan lagama qaadan karo ciyaaryahanka haddii roose la siiyo waxaa qasaba kulanka xiga inuu maqnaado waxay ku dhacday ciyaartooy fara badan South Africa ciyaartii furitaanka laba roose la siiyay sidoo kalena waxaa jirtay in kooxda Paraguay ciyaaryahankooda Almiron kulankii 32 oo ay ciyaarayeen intuu afka dabooshay roose la siiyay isla markaana kulankii xiga oo ka maqnaa marka arrintan la yaab ayay noqotay in Trump intuu la soo istaago uu yiraahdo waxaan wacay madaxweynaha FIFA waxaana iri arrintaasi dib ha loo eego kadibna waa layga ogolaaday oo ciyaaryahankii kulanka caawa Belgium iyo Mareykanka siyaarada ay ku wada ciyaarayaan waa uu ciyaaraya bal arrintaasi la yaab kale dhinaca sportiga ayaan maanta galnay ayaan rabay inaan idin la wadaago sidoo kalena Spain iyo Portugiiska aniga team Ronaldo ayaan ahay waxaan filayaa Ronaldo sanadkan koobkan inuu ku guuleysan doono walow kulamo adag ay ka horeeyaan Spain ayaana ciyaartooda ay hadda socotaa ay wada ciyaarayaan Portugiiska iyo waliba Spain natiijada ka soo baxdana waan arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo